haddii faqri iyo gaajo iyo amni darro iyo dhibi ku soo marto inaad sabirtaa loo baahan yahay ilaa aad ka gaadhaysa nicma alcabdu innahu awaab haddii magac iyo maamuus iyo xoolo iyo sulto iyo waxaana ku soo maranayana imtixaan kale un inaad shukri noqdo abaalkeed marisaa baa lagaa rabaa ilaa aad ka gaadhaysa mansilada ah nicma alcabdu innahu awaab idan waxaan leenahay dunidu aynu ku nool lahay waa imtixaan gebigeedba nabluukum bishari waalkhayr bay taagantay ambiyaduna waa dadka ugu badan ee imtixaanka la geliyey nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka mid yahay ambiyada imtixaanaadka oo dhammi soo mareen isagoo laga xoog badan yahay oo saxaabadiisa hortiisa lagu tumayo lagu garaacayo wuu soo maray isagoo xoog badan oo sulta iyo power haysto dowladdiisu xoog badantay oo dadku afwaajan diinta u soo gelaya wuu soo maray waxay yidhahdaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam muxamedi imtixaanaadka dhammaantood wuu soo maray ay imtixaan aad sheegata bay leeyihin haddaad siirada nebi moxamed akhrido waad ku arkaysaa wax u dhigma ay imtixaan bini aadam uu sheegtana qur-aanku taariikhda uu ka warramaya ambiyada waad ku dhex arkaysaa maalan nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam fitnatu lqariib buu soo maray dadkii u dhowaayoo lagu imtixaamay isagoo rasuulah oo ilaahay soo diray oo dadka khayr u sheegaya ayaa dadka kuwii ugu dhowaa beeniyeen abujahl iyo abulahab iyo quraysh iyo tolkii ugu dhowaa adigoo wanaag sheegayoo lagu leeyahy waa kadaab waa beeraale ama waa saaxir ama waa caynkan lagugu tilmaamayo ilaa xad intay daba galaan adeerkii uu daba socdo oo markuu is idhaahdo cid la hadal uu idhaahdo anaa wiilkan adeerkiiyo waxba ma oga waa sixirroole iska dhaafo haddii adeerkaa ku daba galo bal adgu qiyaas adeerkaayoo aabbahaa la dhashay oo kaa weyn hadduu ku daba socdo oo midhkaad sheegtaba cagsigeeda uu sheegayo uu leeyahy ka yar nagaa dhalayoo waa adeer baanu ahay waxna kama jiraan waxa uu sheegayo yacni cidhidhigaad dareemi lahayd intuu leekaanaya kii kuugu dhowaa markuu xadkaaski kaa taago ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u soo dejiyey oo qur-aanka markaa laynoogu tilmaamayaa imtixaanaadkaasi wax lagaga gudbo oo ay ka mid tahay inuu qalbiga bini aadamku cidhiidhigaasi aanu dareemin cidhiidhi kastoo aad dareemto wax lagaga caafimaado alaslu qur-aanku wuxuu tilmaamaya alaa bidikri illaahi tadma'inu alquluub ilaahay xuskiisa in qalbigu ku dego nusuus badan oo qur'aan iyo xadiidiba way soo arooreen markaa masaa'il badan oo noocaasiya ka warramaya bitafsiil salliga nebiga ka mida kuwa laakiin waxaan u dan leenno inaan maanta ka hadallo التصبيح فقط تصبيح وأريق معنيه وحويا سبحان الله مركز هذا إلهي بعد حمكه في سابي ورجلين علماء الصومالية أما سكلا هذا نوت الممنوع وتنزيه ربي عن النقائص وإلهي سبحانه وتعالى كان الزاهي سكف قينيسو عيب أردن إلهي وما عنطن طبعا هذا وحن نقصية أردن إلهي وما عنطمه إلهي كمالاتكم باو عنطمه الحمد لله بأمرك إلهي أد كمالك وصويس إلهي وحو قرآنك كله يمرك ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون مرك إلهي كصور رمي استهزاء قرآنك كسمايين إلهي كتاب كيسا كسمايين ربي قال لمدى كقالوا بين وحي حمشيغيان إلهي أبورطو وحي كشيغيان نبي قيسي أي وحي كشيغيان dadka waxaan ka sheegayo qariibkiiyo dadkii ugu dhawaaya ayaa ilaahay wuxuu leeyahay fi suurati al-hujurat walaqad na'lamu annaka yadiqu sadruk wa ognayba ilaahay yidhi in laabtaadu cidhiidhiyoomayso waxay kugula hadlayaan iyo waxay alla ka sheegayaan ee adiga waxa la rabo fastac bima tu'mar wa'rid 'ala al-mushrikiina innaka kafaynaka al-mustahzi'in alladhina ilaahay wuxuu soo sifeeyay waxa ay samaynayaan dabeetana waxaa la yidhi walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruk waa ogna in laabtaadu cidhiidhiyoomayso ee fasabbix bixamdi rabbik wa kun min asaajidiin fasabbix tasbiixso ilaahay xuma ka huf multabisan bixamdi rabbik adigoo ku maraya amase ku dheehaya
alle ammaantiisa wakun min asaajidiin inta sujuudaysa ilaahay fooda dhulka u dhigaysana ka mid noqo culammadu waxay idhaahdaan maxaa diiqu sadri inta laga warramay loo yidhi fasabbix waxay idhahdaan huwa tiryaaq waa dawaa'un yustashfaa bihi waxa lagu caafimaadaya waxa way markii xanuunka loo sheegay ee dhibta haysata ayaa ilaahay yidhi sidaa yeel sidan nebiga la yidhi yeel bay culammadu leeyihiin waa sida laabtu ku caafimaado walidaalika baa qur-aanka meelo badan waxaa ku soo arooray qad naclamu inahu layaxzunuka aladii yaquuluun ama falacallaka taarikun bacdu maa yuuxaa ilayka wadaa'iqun bihi sadruka an yaquuluu lowlaa unzila calayhi kanz aw jaa'a macahu malak falacallaka baakhicun nafsaka calaa aathaarihim in lam yuuminuu bihada alxadiidi asafa aayaad badan baa soo arooray oo nebiga calayhi salaatu wasalaam dadaalka uu diinta u hayay iyo dhibta lagala hor yimi iyo cidhidhiga uu dareemayo wada tilmaamaya idan waxay culammadu leeyihin cidhidhigaa waxa lagaga baxaa laabta qofku ay saafi noqotaa qalbigiisa ay طmi'naanku galaa raaxatu اlbaali wanafsi uu ku helaa waa masaa'ilkan ilaahay u tilmaamay subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim ama tasbiix ilaahay oo aad u tasbiixsato iyo adigoo inta sujuudsan ama inta tukanaysa ku biira qur-aanka markaa meel kasta ama meelaha ugu badan ee nebiga la farayo in dhibaatooyinkaasi la kulmayaan waxa la farayay ama salaad iyo tasbiix nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa ka xadiidka saxaabadu ay warinayaan uu ku tilmaamayo idaa xasabahu amrun baadara ila asalaa haddii uu arrin dhib geliyo haddii warwar uu ku dhaco haddii uu wax mashaakila la kulmo baadara ila asalaa baa la yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadduu u degdegi jiray sidaa ogeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya qur-aan tiro badan oo sabir iyo tasbiix sheegaya fasbir calaa maa yaquuluun wasabbix bixamdi rabbika qabla طuluuci shamsi waqabla guruubiha وmin alleyli fasabbixuu adbaara sujuud fii suurati gaafir ilahay wuxuu leeyahy fasbir ina wacd allahi xaqu wاstagfir lidanbik wasabbix bixamdi rabbika bilcashiyi walibkaar fii suurati tuur ilahay wuxuu leeyahy wasbir lixukmi rabbik fainaka biacyunina wasabbix bixamdi rabbika xiina taquumu wamin alleyli fasabbixuu waidbaara الsujuud waidbaara الnujuum fii suurati اlinsaan fasbir lixukmi rabbik ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا صور كاينو سو آخرنا يوردن الله سبحانه وتعالى وحو النبي سي محمد ها عليه الصلاة والسلام وطل ماميا وحا وكلا كل ما يدد كاسي إن يهين وحا عديدي قلينيا waxay ku hadlayaan wax xun inuu yahay nebiguna calayhi salaatu wasalaam rabbi wax ka sheegiisa iyo diinta wax ka sheegeeda inuu cidhiidhi dareemi doono dabeetana waxaa loo tilmaamay sabir tasbiixsana ama tuko suwar kalena iyadoo salaadda iyo sabirku isku xidhan yihin wastaciinuu bisabri wasalaa ilaahay uu ku tilmaamayo waa soo aroortay waxaa kaloo soo arooray nebiyullaahi yuunus dhannuun oo tolkii markuu dhib kala kulmay ka tegay isagoo cadhaysan oo moodayeen inay ilaahay u qabanin say mufasiriintu tilmaamaan oo dabeetana bad tegey doon fuulay si kastaba ha noqotee isaga sahmiguu ku dhacay doonta ha la khafiifiye la yidhi nebiyullaahi yuunus doonta laga tuuray dabeetana uu cunay ama iltiqaa buu libqiyey nimiri xuut weyl ayaa libqiyey alla wuxuu tilmaamayaa meeshaa cidhiidhigaa markuu galay waa cidhiidhi halkii u dambaysay baddu marka hore ileen geed la cuskadaana tahy haddaad badweynta ku hafato marka horeanad nolosha laga quustaa haddana haddaad bahal calooshii sii gasho hadaa walba bad ku jiray haddana bahal calooshii aad sii gasho waxaynu odhan karnaa waa
meeshii u dambaysay ee nolol lagaga quusan lahaa halkaa markuu galay baa ilaahay yidhi wadannuuni id dahaba mugaadiban fadanna an lan naqdira calayhi fanaadaa fi dulumaat mugdiyadaasuu ka dhex dhawaaqay baa ilaahay yidhi muxuu ku dhawaaqaya waxay culammadu yidhahdaan habeen madow oo bad madow oo bahal calooshii uu ku jiro ayuu dhawaaqay oo maxay leeyihin laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin wuxuu leeyahy laa ilaaha ilaa anta ilaw keliga ayaa xaq lagu caabudaa subxaanak erayga nuu soconayna waa ka subxaanak rabbow xuba ka hufnaanta ceeb adigaan lahayn